halkan maanta waxaan farriin yar uga dirayaa xisbiga kulmiye guud ahaanna waxaan leeyahay dhammaan qaranka Soomaaliland waxaan u rajaynayaa horumar nabad iskaashi iyo inay cadowgooda wanaag soo jeedsada maalmahan waxaa aad miidiyaha u barayay labada cisho u dambeysay doodo sharci oo miidiyaha la isu marinayay xisbiga kulmiye oo gaar ahaan dhex marayay gudoomiyihii xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed iyo Maxamed Jaamac Urfa labada gudoomiye waxaan leeyahay hakiya shirarka qabanaysan joojiya xisbigan wixiisa wuxuu ku dhamaysan jiray wada hadal iyo dood iyo kala gar qaadasho sida loo kala gar leeyahay arinta maanta doodu ay ka socotaa maaha arin culus sidaa darteed waxaan ku soo koobayaa arintaa waxaynu insha Allah ku dhamayn doonaa wada hadal iyo la isu yimaado oo arinta sharciga ku murmaysan ee xisbiga si sharci ah aynu eegno dhameysano xisbiga kulmiye wuxuu ka mid yahay saddex xisbi soo baxay waa xisbiga ugu daaweyn waa xisbi culays weyn leh qaranka khalkhalkiisa iyo khilaafkiisuna dalka dhibaato badan buu keenay doona ayaa ka soo imanaysa taana maanta ma baahnin waa waxaynu gudaheena ku dhameysan karnaa xisbiga maxkamadda sare waa saddex institution ka soo baxay doorashada aynu galnay waa madaxtooyada iyo xisbiga ka wadani iyo kulmiye saddex institution waa soo baxay labadii kaleba wuxuudii qayla yaraan bay ku dhameysteen madaxweynuhu uu istay dowladdiisii xilkiisa uu la wareegay dowladdiisu maamushay labadii xisbi kalena wadadooda ay raaceen oo ay qabsadeen marka wax la isula tago meelo kale oo fog ama dadka war dhiilala loo gudbiyo oo la ilaahay xisbiga haysto waa ariga waxa la tahay mahaygsana dadkeena doortay ee xisbiga kulmiye soo saaray ee bacadka u taagnaa ee intaasoo sano taageerayeen in loo turo weeyii oo wixii aan dawrayn ama hadalkan garahayn ama dood la isku mariyo miidaha in laga joojiyo waxaan ku soo koobayaa waynu tashanaynaa wada hadal baa la isku iman doonaa arrintaa waynu gelaynaa si waayeelnimo loo gelayaa xisbiguna uu kala gar qaadan doonaa hala joojiyo miidaha iyo shirka horgeeya ilaa ay ceelaydu iska ay heshiiso cidu ma cabto intaasaan soo jeediyey labada gudoomiyeba waxaan leeyahay labadii loo joojiya shirarka awada halkaa halkii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma doonaysaa sarif leh lagu kalsoonaan karo oo aad ka sarifato lacagahaaga maalin kastaba haddaba ka sarifo Al-Hilal Money Exchange adigoo ka sarifanaya dhanka saada numberka 38230 halka aad dahab hadaad u baahan tahay inaad ka sarifan doonto numberka 60 labo ka sarifo markasta Al-Hilal Money Exchange oo u noqo macmiil joogto ah Al-Hilal Money Exchange waxaad ka sarifan kartaa lacagaha adigoo jooga mi iyo magaalaba soo dhawaada